Asalaamu calaykum. Soo dhawaada mar kale. Barnaamijkeenii jacaylkii bariisamaadka ayuu inoogu magac daray. Waan ku soo gudbinayay qaar ka mid ah heesayga jacaylka ah ama u soo dhowba. Sababta ugu weyn aan barnaamijka u soo gudbinaya waxa weeyaan inaan halkan ku kaydsado aqoontan igu duwan aan la dhiman dee. Markaan dhinto waxaan doonayaa inaad buugaag iga qortaan. Ka soo dhawaada. Heestan aan maanta ka qaadanaa waa heesta 11aad. Labaatan hore u soo akhrinay. Haddaadan soo dhageysan dib ugu noqo. Playlist gaar aan ka sameeyay jiro channelka dhexdiisa ka helisid. Waxay tahay ereyadana haddaad codkayga fahmi weydid xagga description-ka ayaad igala socon kartaa. Waan ku soo qorayaa inta mar baan soo qaadanayo. Aynu bilowno. Heestan waxaa la yiraahdaa qaali. Waxay leedahay quruxay adaa qamar ii shido markaan qiimo iyo ku qiray wanaag iska kay qasho qolqolkii ka tegay. Qayrka markaan qowlkooda jaray qiiq iyo adaa qaaci u shido iga qobay ilmada. Qalanjooy adaa qaabkii tiri qolka aan ku jiro nuur u qaybiyo qodaf iyo xadgudub aan ii qadamin. Marna qaas anoo u qoslaya baad i qalloocisa ood i quursataa qariibka sidiisa. Furihii qalbiga baad qaadato qoom iyo dhulka baad la qabatay miyadan mar quraqaal iman karin. Heesta la yiraahdo tanaad waxaa la yiraahdaa faaliye. Sida faaliyaha la ifaquuqay oo dadkii faaladeeda ka fiiga folaadna sidiisii ma fiirsho. Balse waa fursad ee Facebook aan ku faygaro maanta fariintan markaasay full on faraskiye. Farta waa weynkii ku farxaya inta aan la foqon feejignaado aan fudayd shirtan u fahmayay. Waa fallaaro jacayl fidna keena marna waa fad curto dhulka fiiqa aniga mid faqiira ay faashay. Fikirkii hebla ay fogeeyay subax iyo fiid waan fadhiyaayo baan ka filaa fal wanaagsan fahano sababtana foolkeedu fayrus weeyaan fajac dhaliyo waa fariid oo hore sawirkeed. Hebladana hay weydiinay adigu taariikhda ka dhigo. Heesta 23 qaryad quruxdaada gabar yahay dadkii qaas u faaleeya oo xishoodka oo qaadirkay qaybta ku siiyay. Waa loo qoshuucaa khalqiga caashaq ku qaada aniga jacayl qodax wata qalin naftaydii dhe. Qowl baad ku leedahay xisga kuna qoondooyay ishaydna ma qabto gabdhaha daayay qowlkeeda. Qowl baad ku leedahay xiskan kuna qoondiyay ishaydna ma qabato gabdhaha daayay qowlkooda. Gabar yahay maqaayo hurdiyo quudka iyo aanta jacayl baa qaso ruuxu waa qiilaad oo jeera. Daawo looma qoro oo dabiib baan taqoonteeda adoo quliya mooyee ma jiro qaaradaha kunka. Haddaad qalanjadeeda istiri been ayuu qeexay qaadir baan ku dhaartay dartaa waan qandhaysnahay dhe. Qaryadan haween ugu jeclay qoro odhaahdeeda qulubteenu waa wada jirtay aynu qoys taagno oo qaaliyay nolosha aan qaybsanay toosi qarqarkaaga caashaqay leen wadu qalan tahay. Heestii 24aad magaceeda waxaa la yiraahdaa fogaantaadu darana. Waxay leedahay fariidii haweenkay darma iyo furaash baad ku fidsatay qalbiga oo anoon dhigo ku fariin baad cawis fiida seexatay fiiraha iyo laaftaba. Faleenbada jacaylkuna dhiigay ku faafto fursad uma heli karo inaan ku furfuro hadal. Faynuuska kaahay furihii ka shayday farxadayda kaabay fikir igu labeeyay marwa aan ku faano ila fahanta noloshay. Faylaha qudhayday faayaha naftayday dibnihii iyo faruuriyaha fasaxaya hadalkaay. Fogaantaadu darana fiirsigaagu wacana foolkaagu shidana fadhigaagu bilana fahankaagu badana oo igu filaatay ficnida kor iyo hoos. Heesta ugu dambaysa aan ku soo koobay qaybtan waxaa la yiraahdaa Shandaan. Nalkiyo shamci dalka ay dhabeel milgo lagu sharfo shakoor qurxiyay. Shaagiyo lagu haygiyay shanshada adhaxdiya kubkaay shukaanta ileexisay sidii sheekh iyo wadaad Shandaan lagu soo hirtay. Shamsada koonka nuurisay midaan shafka iyo wadnaha sidii shambadu ku dhigay. Shar iyo mataqaanid xume shakigu ka dheer wale shaydaankan ku hawoon shanta faralkaanad gabin xijaabkana lagugu sheeg. Shubtaan uma dhalanina haddaan kuu sheegan laashidanay caashaqani helay waxba igu yiri shirbaad galasay ka joog. Waynaayo mar kale. Assalaamu calaykum.